walaalay macaan ninka isku dhajino saddex laay mar walba naakadii aroos laaytii sureedo qaba uure leedahay waxay tir gabar walaashay ah ayuu ninkan qodbisiro ku qabaa uur ayayna leedahay abti taxyare ayaa uur yeelay subhanallah waa ninka shaadi sharaf qabay shaadi sharaf ninkii qabay ayaa uur yeelay gabar tiri waa haddaba qalka saarayna fikirkayga ka dhigto macdinka ay la taawataan cid walba fikirka ka daawan karta iyo sababta ay uur ku yeelatay iyo halkii ku yeelatay haddaba muuqaalka ayay noo bilaabtoona aniga markaa fikirkayga ka dhiiban doona muuqaalkaas waliba markii aan doodo daawano wax walbana hore ayaa u soo daaway hore maan u soo taabanay teatalka ku qoran oo kaliya ayaa arkay laakiin haatan ayaa soo daawanayna kadibna fikirkayga ayaa ka dhiibanaya adigana fikirkaaga ayaa ka dhiiban doontaa haddaba muuqaalka inoo bilaabo walaalay macaan ninka isku dhajino saddex laay mar walba naakadii aroos laaytii waxay tiri walaalay ninkan isku dhajinaysid ee cadfitaax la dhaho حتى ناقروس ساس ناقروس لك تصلها دياس فحير كبيبتو هدينا أيضا اسكولي دجين يا اسكولي دجين لها ما ذيك يا اسكولي دجين لها ما قبل كلا وهايسا اسكولي دجيسو نمي ناكتيس اسكولي دقيقة تدا اسكولي دقيقتين تيو حاسوا واحد في عيني هاي مليش عن وحكم كم صعبان بلا أسلسي في رسمة إيه ما لاي أكلي ninkan naag labaad qof hadii ay kula gursan lahay hadii ay madal lahay ayuu ku leeyahay dhahay min malaardeen kara ilmaadii dal lahaa hadii ay gursan lahaa hadii uu dhaho tabcan nimanka Soomaaliya ay koonada qabaan ilmoodii naagahooda qabaan iyo hadii wixii jecel yihiin inay konto cunug dhalaan kintaali bar inay dhalaan ay jecelyihiin taasna markaa kaligiis maaha nimanka dhanaas ka jecel haddana qaarkood naagii gacanta ku hayaan oo ka cabsanaya kadib ma ahnaatoonaynin in markaa la guursado haye bal ku soco sureedo qaba uure leedahay waxay tii gabar walaashay ah ayuu ninkan qodbisiro ku qabaa uur ayayna leedahay sheekada waa sheeko weyn walaashaa sidee ugu ogolaatay walaashaa inay nin qodbisiraysato sidee ugu ogolaatay haddii uur leedahay uurka maxaa qodbisiro la isku yeelay taas bal maxaa ka jiro qodbisiraduna maxay shiiqmanka ka qodbisirada laftirkeeda shiiqmanka maxay ka dhaheen ku soco deed bilood waayo caloosheed gabar saaxiibtay ee waayo haddan kuu sheego isku dhaji ama isku gabar saaxiibtay ah ayuu ninkan qodbisiro ku qabaa ama isku dhaji ama isku dhajin uur ayay leedahay 8 bilood haddaba yaa jabkiya qaba gabadha saaxiibta laakiin la tilsideed already didi waasay uur leedahay 8 bilood ee tahay 8 bilood guri hooyadeeda ay uur ku leed deeyd laftirkeeda waa sheeko kaleeto oo markaan looga soo ogaado u baahan haye sajaa muqaalkii buu dhamaaday oo kaliya waxay sida muqaalka la arkaysan hadii markaa fikriga ka dhibto gabar walaashay saaxiibtay ah marka ruuxi tir gabar walaashay ah kadib waxay tir saaxiibtay ayuu qodbisiro ku qabaa 8 bilood uur ah ayayna leedahay hadaa isku dhijin lahayd iyo hadii aad ka tagi lahaydba tanko horta waxay tahay shaawiyo dib ma qabto haduu naag qodbisiro ku qabo iyo hadii uur u leedahay 8 bilood ah iyo hadii markaa walaasha ay yahay hadii saaxiibtahay tan kaliya oo rabo in markaa halkan idinka cadeeyo waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed intooda badan sameeynaayo qodbisirada nimanka guursanayo uur loogu yeelay hadda tan waxa laga yaabaa in macnaha cadow iska tahay cadow la madhiyo karo macnaha ila qosol ama sheeko ama halaga sheego ama halaga maqlo ama in TikTok kala kacsanaysa wixii doonto ha ahaato laakiin gabdhaha markaa idahayaan nina uur noo yeelay waa qodbisiraysanay uur ayuu noo yeelay 8 bilood guri hooyada joogto maxay tahay maxay sasaabin kartaa naagtii hore ninka uu qabay miyaa dhibkaas dareemaysa mase qofka haatan qodbisirada lagu qabo ayuu dhibkaas haystaa adiga daawanaya
bal fikirkaada kasoo dhibo labada dhiban gabadha haatan qarinaya ayaa dhiban mase naagtii hore oo markaa ninku qabay ayaa dhiban hadda gabadhan waxay ka dhigaysaa ninka haddii ay ku dhigdhigi lahayd iyo haddii ay hoosta ugu juuri lahayd iyo haddii kaleeta ay sidan lahaydba wuxuu qudbisiro ku qabaa gabar ayuu qudbisiro ku qabaa si uur 8 bilood ayayna leedahay isla markaasna uu qaba haddii ay isku dejin lahayd iyo haddii ay ka tagi lahaydba ninkaas gabadhaas ayuu qabaa ayay taagan tahay marka adiga laftirkaaga muuqaalka daawanaya labadooda yaa dhib qaba qudbisiradana diinta maxay ka qabtaa shiiqninkii maxay ka dhaheen oo markaa qudbisiradu maxay shiiqninkii ka leeyihiin wax banaanba mase waa waxaana badhanayn guurku wax sahlan maaha ka fiirsada wax qarsoon ayaan laydinku sirin ninka ku qarsaday ee ku tuugaystay nin dhaqankaa raba maaha masalada ogaada waa nin doonaya habeenay inuu kula seexdo ama kugu dangaadho wabillahi tawfiiq ka danayso laakiin ninka dhaqashada ka raba geedkaad soo fuul tiraahdo waa soo fuuli maxay dhibay ku haysaa aabahay ama adeerkay soo weydiisana tira qodbisirada gabadhu hadii lagu qabo ninkaas markaa oo furo oo furdido ninka ay guursan kartaa isla markaasna way inkiri kartaa ayay dooliga waxba ka dhacay meeshaas shiiqa hadalku leeyahay sidaas ay tahay laakiin shiiqano shiiqo malow hadii maanta ay gabar leeyahay mukaakaas daawato nin loo guursanto in kirto kale dambigeeda adiga ayaa iskale adiga ayaan qaaday ilaa hadalka adiga ayaa yiriyay gabadhu dininka guursato qodbisira ay ku guursato qodbisira markay ku guursato kadibna soo qabo ka tagso way inkiri kartaa oo guur kaleeto way saameysan kartaa waa sheeko kale taas laftirkeeda ayada ayaa sheeko kaleeto oo barkaa la yaab leh gabdhaha Soomaaliyeed waxa la yahay inta naag ku xnuunaya naag ayaa ii jaban adduunka ka dhacday sidaas way leedahay sharaftaada ha ku cayaarin ninku ku reebad wax walbaba iyo kuma qarnay sheekadu uur taagan tahay waa ka sii daran tahay